Almadow waa qayb ka mid ah silsiladda buuraha Golis ee waqooyiga Soomaaliya. Buurahan oo dhererkoodu gaarayo 1800 ilaa 1200 mitir oo jooga badda ka sarreeya. Roob sanadeedka ka da'a buurahan waa 600 ilaa 700 milimitir. Sidoo kale, caariyaanta ka timaada badda ayaa ku da'da, sababna u ah in Almadow noqoto meel aad u cagaaran jeer walba. Haddaba Almadowda aan maanta ka sheekaynaynaa waa deegaanada hoostaga degmada qadiimiga ah ee Laasqoray ee gobolka Sanaag. Kaymahan oo lagu qiyaaso ku dhowaad 1 milyan oo hektar, sida ay sheegtay hay'adda Fowes Wilam, waa deegaan nololeedka kumanaan nooc oo noole ahi iyo gaashaanka ka hortagga nabaad guurka ah. Dhul carrasan, ilo biyo oo qulqulaya, iyo kaymo dabiici ah oo wax walba ay ka baxaan. Deegaankani waa mucjisada dabiiciga ah, halkaasoo cagaarka iyo biyuhu ay ku midoobaan jaad kasta oo dhir ah. Haddaba caqabadaha ugu waaweyn ee deegaanka ka jira waa xagga jidka, waddo aad u cagaag ah, dhirtuna ay hareeraha ka cidhiidhiday, balse haddii la hagaajiyo si buuxda, waxaa ka faa'iidaysan kara dalagyada kala duwan iyo dhammaan wax soo saarka deegaanka.